gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhagax dhigay suuqa Dayax waaxda wax raacda ee degmada Hiilwa oo lagu iibin jiray xoolaha nool. dhagax dhig kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu kormeeray qeybaha uu suuqani ku fadhiyo oo ah dhul baaxad weyn, waxaana horey loogu iibin jiray xoolaha kala duwan inkastoo uu qayb ka noqday goobihii danta guud ee ku burburay qalalaasii dalka dhacay. agaasimaha suuqyada dowladda hoose Xamar mudane Maxamed Macalin Dhiciso ayaa faahfaahin ka bixiyay baaxadda uu suuqani ku fadhiyo iyo marxaladihii uu soo maray. maanta waxaan nasiib u yeelatay in duqa magaalada maanta uu dhagax dhigo suuqii Dayax oo ka kooban 6 block. 6da block oo ah 270 mitir oo dhir ah iyo 180 mitir oo ballac ah lagu iibiyo xoolaha magaalada Muqdisho la keeno lagu iibi jiray oo ah geel, ari, lo, dameero, xitaa digaag waa la keeni jiray. agaasimaha guud ee waaxda howlaha guud ee dowladda hoose Xamar Cabdulaahi Muuse Axmed Caraaye waxa uu ka hadlay ahamiyadda uu suuqan u leeyahay magaalada Muqdisho. caasimadda marka in inta la yimaado suuqeeda oo noqdo suuqi Dayniile iyo suuqi Ceel Xirka dheer wax sax ma ahayn ayadoo dhul intaan la eg haysato. nasiib wanaag maanta waxaa asteeyay in caasimadnimadeeda iyo suuqnimadeeda ay ku soo noqoto gudoomiyaha gobolka Banaadir aragtidii awaamirta oo nasiya annaga ku shaqeynayno biidnillaahi alkariim gudoomiyaha ayadoo in badan ka bedelan caasimadaha la tartamaysa suuqyadeeda standardka aan ka dhigno insha Allah taala. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ilaashadaan goobaha danta guud oo muhiim u ah adeegyada asaasiga ah. suuqu wuxuu leeyahay dhul ballaaran oo qayb walba oo xoolaha ka mid ah iyo dadka ka ganacsanaya ku filan. mas'uuliyiinta deegaankan ee maamulka gobolka Banaadir oo u xil saaray noolaynta suuqan iyo madaxda maamulka gobolkuba waxay qaadanayaan mas'uuliyadda ah in suuqaanu dacdaradii hore ugu dhacday ayaan ku dhicin oo uu noqdo suuq weyn oo dhammaan xoolaha magaalada Muqdisho la isugu keeno. bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Hiilwa iyo Gubadley ayaa ka faa'iideysan doona hergelida iyo hanaqaadka suuqa. mar hadday fursad fadhigooda ugu timid ay tahay waxaan rajaynayaa inay kala dagaalami doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay dayac iyo dib u dumid ku keenayso suuqa. haddii aan bulshadu bislayn horumarku ma hana qaado. maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar oo uu hogaaminayo mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku holanaa dardargelinta mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidii dhulka danta guud loogu qidmeyn lahaa shacabka Soomaaliyeed si loo abuuro fursado kala duwan oo shaqo abuur u noqda bulshada caasimadda. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.